maalin ta ka dambaysa siyaasadda albaabada ay garaacanaysaa jiiq cabsi madaxweyne dowladda federaalka ay taliyihii galgaduud ayuu xilka ka qaaday qoorqoorna waa diiday ninka madaxweynuhu magacaabay waa nin Saleebaana barrina waxaa la doonayaa in dhuuso mareeb laga soo dejiyo qoorqoorna kii madaxweynuhu xilka ka qaaday ayuu xilkii ku soo celiyey berri kaas markuu airport ka soo degayo qoorqoor ma aqoonsanaya koortag buu sameynaya adeer soo degi maysid uu leeyahay haddaan caawa xaalka inta la miro aan la Saleebaanayn lagana dhaadhicin qoorqoor ninkaas inuu meesha ka soo dego maalinta beriya in xabado dhacda laga cabsanaya magaaladii dhuuso mareebeed soodariyaasha saa u xirxirteen madaxweynaha dowladda federaalka waa qofka sharciyada ku taagan ka sharciga diidan ee ka soo horjeedana waa qoorqoor hadda dacal laga hadlayo taliya heer federaala oo dowladda federaalka kaliya ayaa xalka ka qaadi kara ninkaanu taliya galmudug maaha waa taliya federaal maalmahan qoorqoor iyo xasan sheekh maxamuud dhukucay dheelayeen war xamar ha tago ha soo laabto been ha loo sheego horta miskiinku waa badaalay birta inuu meel ku dhufto waa rabi meel le bruska dhag inuu ku siiyo boqolkiiba waa rabi qoorqoor waa dardaashi xasan sheekh maxamuud qarac saad isku lahayd iskaga dhaadhici u lahayd maalin baad u qoran salaaxaysay ku wacayay intaadii ugu badnaan xamaraad ku qaadatay iyo xasan inaad iska dhaadhicid haddana saas ay tahay weli positionkaadi ma joogtid oo diyan xogtan helaya sax noqoto oo aeroboortka qoorqoor oo ciidamo badan dhoobo taliyaha xamar laga soo qaadayana diyaarada ay soo galbiyaan sida lafta gareen sheegay qoor waraysiga laga qaadi doono diyaaradaha sawiro u dhihi doona asagoo war qalka laaga saaro qaybtooda ka matiga